xilliga ay ku tahay goorsheegtada habeen iyo maalinba wacan oo wanaagsan soo dhawaada khiyaaray kulan kale oo xiiso badan waa muuqaaladii aan uga hadli jirnay caafimaadka iyo cilmu nafsiga muuqaalka maanta ama caawa idiin wadana wuxuu daaran yahay mid ka mid ah mawaadiicda ugu muhiimsan ee bulshadeena saameynta ku leh inagoo u talagalnay inaan wacyiga bulshada caafimaadka u leeyihiin kor ugu soo qaadno barnaamijkan waa barnaamijkii tananin waa sheekadeydii oo hore qisooyin aan kusoo qaadanay oo ugu talagalnay inaan qisooyinkaasi bulshada ay kala dhex baxaan fikrado iyo sidoo kale wacyi ku yeeshaan annagana aan fariino caafimaadku ku dhex gudbino sheekada maantana waxay daaran tahay gabadh 10 jir ah oo kansar laga helay kansarku waa xanuunada ugu halista badan ee bulshada caalamka saameyn xoog leh ku yeelata dadka qaybtoodna ay u dhintaan waqtiyadii ugu dambeysay adduunka oo dhan uu kusoo ziyaaday Soomaaliya gaar ahaanna ogaanshihiisa ayaa wuxuu gaaray heer aad u sareeya waqtiyadii ka horeeyay xilligan waxyaalaha saacidi karin in waxay ahayd aqoonta caafimaadka oo hoysiisay iyo magaalooyinka oo aysan dhakhaatiir ku filan oo garan kara xanuunkii ama astaamihii waxun ka sheegi kara in aysan lahayn balse maanta waxaa jira dhakhaatiir goobo kala duwan oo wadanka ka dhex shaqeeya oo ugu yaraan at least hatta haddaysan waxba ka qaban karin ogaan kara xanuunada oo dadkii bulshadii u sheegi kara gabadha 10 jirka xanuunka lafaha ee kansarka ayaa ku dhacay kadibna reerkoodii waqti waxay ku qaadatay in la ogaado sababtoo ah uu adag yahay ogaanshihiisa waxa ay noqotay in xanuuno badan oo kala duwan laga daweeyo marba xanuun lagu sheego mar rheumatism lagu sheego marna xanuunada lafa xanuunka lagu sheego adiga dawooyin badan baa loo qoray sida aan qisada ku maqalnay kadibna waqti waxay qaadatay in la ogaado waxa la ogaaday waqti markay ka soo wareegatay iyadoo gabadhiina ay aad u xanuunsan tahay ogow ilmahaaga hadduu xanuun badan dareemayo ha ku eegan hays oranan ha fududaysanin annaga waa fariintaan rabnaa barnaamijka inaan maanta ka dhex gudbino xanuun kasta oo cunugaaga ama qof sheeganayaba ha ignore gareen waa inaa ugu yaraan ogaataa xanuunkaas sababta ay xanuunka u dareemayso xanuun joogto ah waxun baa sababa iskama yimaado xanuun joogto ah haddaba sheekada haddaan iisii wado tan ka nasiib daran waxay ahayd markii la ogaaday reerkii oo loo sheegay inuu xanuunkan kansar yahay kansarkuna Soomaalida waxay ka aaminsan yihiin waxyaalo aad u khaldan waxay noqotay iyadana in waqti kala qaadato in arinta ay reerka ku qancaan sheekada saan ku maqalnayna gabadhii waxaa la geeyay waxaan loo yaqaano qolooyinka ka shaqeysta inay dadka jin iyo sixir iyo cayn ayaa ku jirta sidaa darteed ka shaqeeya waxyaalahaasna ka sameeya lacag fara badan gabadhii waxaa qoladii markii loo geeyay rusheeye yar iyo rusheeye weyn midkuu yahayba waxay noqotay in macnaha la ciqaabo gabadhii oo si loo yiraahdo waxba qabta ama jin reerkana loogu qancino gabadha jin qabto waxa la isticmaalayay waa la dilayay waa la dhibaateynayay waa la ciqaabayay gabadhii waxa lagu sameeyay torture wax la yiraahdo oo ah in koronto lagu dhajiyo inanta markay ooysadee dabcan qof koronto lagu dhajiyo adiga waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay qofna uma adkeysan karo xataa haddii lagu yiraahdo adduunka oo dhan waxa ka jira sheeg siday u rabaan ayaa u sheegaysaa adduunkana waxaa isticmaala qolooyinka dambi baarayaasha iyo qolooyinka dadka ciqaaba ayaa waxyaalaha isticmaala aad ayaan uga naxay markaan qisada maqlay in badanna waa maqli jiray oo dhowr jeer ayaan isku dayay inaan ka hadlo mowduucaas balse caawa nasiib wanaag waxaan rabaa inaan ka hadlo arintaas oo fariinta iga aadan caafimaad ahaanna aan dadka aan bulshada gaarsiiyo inantii markii la ciqaabay wixii ay ka rabeen oo ah inay jin ku jiro jin baa igu jira nooc u yahay waxaas waxyaalaha la isweydiiyay waa aragteen waxaas ku jira noocaas u yahay muxuu yahay xaguu joogaa ka baxsan yeel waxaas nasiib wanaag waxaa joogay goobta oo markii la toojgareynayay gabadh caafimaadka wax ka taqaana oo yani bahda caafimaadka kamid ah
oo fahansaneyd waxaan inay khuraafaad iyo mustaqbalaad dadka lagu dhibaateynayo tahay waxay u sheegtay inaysan lagu sameynin cunugta toojar markaas iyadina loo soo jeesto waxa la yiri adiga laftarkaaga ayaaba jinka iyo sixirka qaba kadib aduu arintii waxa isku dhacba meesha ka yimid qoladii waxay noqotay marka gabadhii inay ku reerkiina ay ku qanciso inay waxaan aysan waqtiga lagu lumin cunugtan xanuun cancer oo lafaha ku dhaca oo la daweyn karo adduunkaas hadaa la geeyana inaan waqtiga aan uga lumin waxyaalahaas dad badan oo noocaas ah xanuunada nooca qaba ayaa waxay waqti ku lumiyaan waxyaalahaas qaarkood markay xanuunku ku baaho oo dhibaato gaarsiiyo ay dhaqaatiirta la soo aadaan taasoo nasiib daro ah kadib adigu ilaahay mahadiis gabadhaas yani iyo tii ilaahay socotayba waxay reerka markaas lagu qancisay in gabadhii dhakhtar loo dhigo haddana dawadii ayaa u socota waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay caafimaad ku siiyo dadka kale oo xanuunsanna sidoo kale inay ilaahay caafimaad ku siiyo balse waxaan rabaa fariinteedii ugu dambeysay inaan kusoo gabagabeeyo dadkan ka shaqaysta oo sheegta inay jin iyo sixir iyo wax aynkaasa jiraan dabcan quraanka waa lagu sheegay diinteenu waa sheegaysaa jin inuu jiro xaq inuu yahay caynta laakiin qaab loo daweeyay ayaa jira oo diintu ay sheegtay waxaan xafiisyada ama guryaha inta loo furtay dadka lagu dhibaateynayo lagu torjargareynayo qaarkood meelo xun ay oo aysan aqoon u lahayn hadii qofka meelo waxa jira hadii la qabto uu markiiba ka dhiman karo qaarkood ayaaba u dhintayba saan xogta ku hayo dadka aad baa loogu dhibaateeyaa waliba dumarka ayaa u badan jinka dumarka kaliya ku dhacaan anigu waa isweydiiyaba jinka aan dadka kale ku dhicin ragga ku dhicin adduunka marka tagtid gabdhaha dumarka Soomaalida mooyaane dumar kale aan ku dhicinin xaguu joogaa jinkaas xaguu joogaan ma fahmin waxa jira marka hadii marka ay tahay waxaan quraanka in qofka lagu daweeyo sax weeye qofka in quraan la saaro طبعا طبيعي way laakiin la torjagareeyo la dhibaateeyo la dilo oo la ciijiyo oo la kooxay xagee caafimaadna ma aha aqoon diinna ma aha oo meel ku soo laga soo keenay ma jirto waxaan dadka adduunka oo inta la baaray la yiri waxaan hadda lagu dawoosmanayana ma jirto marka waxaan rabaa dadkaas inay horta Ilaahay ka baqaan oo ka xishoodaan dadka waxaan ay sameynayaan inay ka baxaan hadii ay dadka quraan saarayaan si dabiici ah quraanka si waxa loo saaraa dabiici qofkii quraanka ku akhri oo ducee adkaara jira qofka lagu akhriyo balse inaad ciqaabto oo qofkii dhibaatayso oo dhibaato ka weyntii uu qabay aad si gaarsiiso nafsiyaadkiisa si disho aaday dib u leedahay xanuunada inta badan nafsaani ay u badan yihiin dumarka ay u tagaan lagu sheego jin baa jira waa laga dhaxqeeliyay waa xanuuno nafsaani ah oo la rabo si nafsi ah in loo daweeyo oo dhaqaatiirta psychology-ga la tashto hadii marka adiga family-gaaga oo qof kamid ah arinta ku dhex jirana kala tala bixi waxaan inaysan wax qofka uu ku daweysmanayo sax ma aha meel ku qorantaa malay caafimaad ma aha aqoon diineedna ma aha aqoon caafimaadna ma aha aqoon la tijaabiyo inta la arkay dadka ku daweysmanayana ma aha waxa la rabaa in arintaas laga digtoonaado oo fariinteena ugu dambeysay ay tahay dadkaas inay Ilaahay ka xishoodaan dadka ehel kala ah qofkaas dhibaataysanna ha sii dhibaateenine meeshii wax loogu qaban karo ina gaarsiisi ina dhakhtar psychology la raadi hadii qofkan xanuunada mentalka uu qabo yani inta badan calaamadaha waa mental disorders way xanuunada maanka ama maskaxda taas la raadi hadii wixii ka soo haray quraanka hal ku akhri sheekh culimo u yar ku akhri laakiin meel shirkada oo inta la furtay xafiisyo la furay dadkii la rusheenayo la dhibaateenayo la dilayo la macnaha wax laga hadli kara maaha wax aad u foolxun oo naxdin badan way gabar toronjira in la dhibaateeyo aad bay u xanuun badan tahay oo xanuun aysan qabin oo waxaysan qabin inta lagu sheego la yiraahdo waxa jin baa qabtaa iyo waxaas inaysan wax jira inaysan ahayn dadkaasna waxa u maleynayaa iyaga laftirkooda jinka la shaqeysta oo qaabka ay u shaqeynayaan inaysan qaab yani dadka wax taraya inaysan ahayn muuqaalkii way la dheeraaday xamaasadda iga haysay mawduucaas marar kale insha Allah ayaan ka hadli doonaa aad ayaad u mahadsantihiin la wadaaga asxaabtiina dad kana digtoonaada dadkaas iyagana iska daayaan waxa ay ku dhex jiraan adduun iyo aakhiro waxba ku helimayaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.